الحمد لله رب العالمين وحن maanta soo gaarnay oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed oo uu soo gaarsiiyay meel ummadda Soomaaliyeed ay ku faani karto hadday noqon lahayd abni ciidamada qalabka sida oo aan kala dhicin hadday noqon lahayd dhaqaalaha dalka iyo horumarka iyo dhismaha iyo ganacsiga hadday noqon lahayd dhinaca isdhexgalka bulshada iyo ummadda Soomaaliyeed inay is aragto quruxdeeda sharafkeeda dawladnimadeeda iyo karaamadeeda iyo hadday noqon lahayd dhinaca horumarka dhismayaasha wadooyinka hadday noqon lahayd dhinaca ballaarinta dawladnimada in la gaarsiiyo ilaa heerka ugu hooseeya dalka gobolada dhismay dawlad goboleedyada hadday noqon lahayd dawlad dhismaheedii u dhammaystiran yahay ilaa heer sharci dejin heer xukuumad maxkamad iyo ciidamadii fulin lahaa bulsho u heelan dawladnimo oo dib ugu baraarugtay dadkeeda iyo dalkeeda inay wax ku qabsato iyo in dalka la aamino oo la maal gashado oo dadka dibadda joogana ay soo noqdaan kuwii dalka wax ku helay dhexdiisana ay dalka qurxiyaan oo dhisaan khaas ahaan gabdhaha Soomaaliyeed oo ah lafdhabarta shacbiga ama lafdhabarta ummadda Soomaaliyeed oo run ahaantii 4 sano oo madaxweynuhu uu dalka hogaaminayay uu ka kasbaday kalsooni buuxda sida uu u ilaaliyay sharafkooda sida uu u ilaaliyay xuquuqdooda sida uu u soo saaray shuruuc ka difaacaysa dhinac walba ee bini aadanimada ah